أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. walaalayaal waxaan jecelahay inaan ogeysiiyo ardaydii ku xiran Machad Nuurul Iimaan online ardayda oo kala jooga sida Mareykanka, Canada iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya hadii Ilaahay idmo insha Allah taala. waxaan rabnaa ardaydii hore aan ugu soo dhameynay kitaabka Cumdatul Ahkaam inaan u bilaawno maalmaha sida Axadda iyo Sabtida Riyaadu Saalihiin insha Allah taala inay sida la socdaan biidin Ilaahay taala insha Allah. ardayda kale doonaysa inay iska diiwaan geliyaan Machad Nuurul Iimaan online insha Allah ayaguna waxaan siin doonaa insha Allah telefoon aan ku soo qori doonaa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala. marka de walaalayaal aakhiro waxa la isweydiiyaa waa diin weeyaan. qofka adduunka wax walba uu kasbo dhaqaalo walba tacbo wuxuu ka qaadanayaa mar yar oo la yiraahdo karfan oo labada gees laga soo xiraayo. marka sidaa daraadeed walaalayaal waqtigeena aan gelino waxbarashada quraanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala walaa siyaman walaalayaal quraanka barashadiisa fadaa'il fara badan buu iska leeyahay. kaliya waxaan ugu filan xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabiga yiri khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. dunida oo dhan adduunka niya u khayr badan qofka quraanka Ilaahay bartay subxaanahu wa tacaala haddana dadka sii baraya. walidaa sida daraadeed marka uma baahnin wax kale inaan ku mashquulno waqtigeena waa inaan gelinaa quraanka Ilaahay barashadiisa. qiyaamaha waxa lagu weydiinaya xooga Ilaahay ku siiyay subxaanahu wa tacaala maxaad ku dhameysay, cimriga Ilaahay ku siiyay maxaad ku dhameysay, maalkaaga see maxaad ku bixisay.